marka horta kow waa maxay diikarka si u fahmno waxa weyn fahmno wadnaha si u shaqeeyo doctor ayub buu noo sheegay marka wax badan ka sheegmay laakiin waxa weeye dhakhtarka marka aadid uu gacanta bahas mashiirka la yiraahdo kugu xiro dhakhtarku wuxuu ku sheegayaa kadib wuxuu leeyahay diikar baa qabta ama diikar ma qabtid inuu tiro ku sheego tirada dhakhtarku ku sheegay waxa weeye hal tiro oo ka kooban laba number numberka sare waxa weeye wadnaha markuu isku yimaado uu diiga tirka ku firinayo numberka hoose diastoliga loo yaqaanana waxa weeye labada garaac ee wadnaha inta u dhaxaysa wadnaha nasanayo pressureka ku tira wadnaha marka qofka caadi waxa laga doonayaa cadaadiskaas diiga inuu ahaado 120 tirada sare tirada hoose waxa laga doonayaa 80 marka goorma la oran karaa qofka diikar buu qabaa diikarka waxa la oran karaa qofka inuu qabo markuu tirada sare daafto 140 ama tan hoose daafto 90 ama labadaba daafan xuduudka lagu talagalay marka ma aha diikarka xanuun oo hal mar inta maanta qofka ka qaadid ma oran kartid qofka diikar buu qabaa waxa weeye muddo go'an door goor in qofka eegtid oo ka qaadid diiga cadaadiska diiga eegtid sidoo halku marayo dad xataa waxay qabaan dhakhtarka marka u yimaadaan xoogaa nervous bay noqonayaan way baqayaan ama waxa laga yaabaa qofka inuu soo yara daahay uu soo orday marka wadnahoodii garaacisa isla markiiba korku maraya waxa laga yaabaa qofkaas in maartay lagu qaldamo yacni daawo la siiyo iyagoo daawo u baahan marka xataa marmar waxa wanaagsan qofka qalabka inta la siiyo ay guriga iskaga qaaraan iyagoo maartay nastay oo degan oo blasters ah ama farmasiga aadan door goor iska qaaraan iyagan horta diikarku yuu ku dhacaa diikarka waxa weeye xanuun oo runtii qof walba ku dhici karo laakiin waxa si tira dar u sii nugul in xanuunkan ku dhaco darkaasna waxa weeye reerahaaga hadii qabaan hooyada ama aabaha kale ama awowga iyo walaalaha hadii qabaan ari inuu kugu dhaco risk ba ku jirta xanuunkan ama qofka hadda sida xabso iyo ayuuba ka helayeen darka maanta hilibka badan leh ama cunto xumada maanta anaga Soomaalida ma sha Allah waxa cunaa cunto dufan leh iyo hilib iyo baasta da cuneen cunto ma cunin marka iyo darka maanta daqiiqa yarna ina cunto xun cuntid iyo dahri istaqaatin maayo maartay aladib isku keenaya marka taas iyo cholesterolka darka maartay ku kacsan yahay iyo darka maartay daawooyin qaar cuna daawooyinkaas qaar waxay ku keeni karaan diikar laakiin taas waxay wax maartay dhakhtarkaaga ku sheegayo markaas diikarka horta maxaa lagu gartaa calaamadahu leeyahay diikarka ma aha xanuun oo maartay calaamado u gaar ah leh waxa jira waxyaalo lagu garto laakiin waxyaalo kalena way noqon karaan diikarka horta qofka qaba inta badan wax isku arki karaa mar xanuun iyo daal iyo jahwareer isku arkaya qofkii iyo wuxuu isku arki karaa maartay barar inta badan lugaha gacmaha xataa neeftuur isku arkaya qofka marka calaamadahaas yar qofka markuu isku arko haduu isku eego oo yiraahdo dabcan waxba ma aha iska toog waariga socdee dhakhtarka aadin calaamadaha waxay noqonayaan wax waaweyn oo complication way ba qofka ku dhacay complication kaasna tan ugu horeysa waxa weeye diig furanka maskaxda xididada maskaxda ku yaala waxa weeye xididada yar oo ma lagu talagalin cadaadis weyn inay xamilaan marka qofka haduu diikar qabo xididihii yar maskaxda way dilaacayaan maskaxda qofka diig baa ugu furmaya diig furankana waxa weeye halis oo hadaa isla markiiba ku diman waxa noqon kartaa paralysis ama hada xaralka ku dibi kara aragaaga uu naaqusaya waxay ku xiran tahay halka maartay qaybta maskaxda uu diiga kaaga furmo diig furanka ka sokowna wadnahu saameyn kara hadda waa laga wadnaha wax waa laga seegay laakiin waxa wadnaha waa muruq la maartay marka muruq haduu shaqo extra helo muruq uu weynaanaya wadnaha haduu weynaadana diigii uu maartay markuu isku yimaado ku firin lahaa tirka si fiican ma ku firin karo diiga marka wuxuu ku noqonayaa halku ka yimid diigana wuxuu ka yimid sanbabaha diiga sanbabaha markuu ku noqdo qofka wuxuu dareemayaa hawadii oo maartay ku arkaanaysa sida uu qaadanayay wuxuu dareemayaa daal iyo tabardaro wadnahana marka aakhirka waxa uu ka sii darayaa arintiisa waxa u bahnaanaysa wadna cusub hada isku eegtay waxaan xanuunkooda dhakhtar aadin oo daawo isticmaaleen hadda xididada xataa diikarka uu saameyn karaa laakiin doctor ayub bata seega marka wax badan ka seegi maayay
laakiin taasba waa meel maaragtay hataa halis ah waxyaalo badan buu saameeya dhiikarka xubno badan jirka mushkiladda horta waxa weeye xiriirada waxa weeye jirka dhiig ku filan heli maayo dhiig ku filan hadduu helin oxygen ku filan heli maayo markaas qofkii xanuun iyo dib kale u imaanaya dhiikarkana waxa weeye kilyaha xataa wuu saameeyaa tubooyinka yaryar oo kilyaha baa cadaadiskan weyn way ku xumaanayaan ma xamili karaan marka qofka waxa weeye kilyaha way daciifayaan si daciifayaan ilaa ay gaaraan heer ay kilyaha fadhiistaan qofkana markaas waxaa maaragtay ku qasban yahay inuu dhiiga laga safeeyo hada waxaan dialysis baa la yiraahdaa waa qofka maaragtay kilyihiisa markay fadhiistaan waa laga safeeyaa ilaa qofka kili cusub helayo dhiikarka laakiin waxa weeye xanuun oo hadaa lagaa daaweeyo nolol caadi noolaan kartaa sida dadka kale oo dhan waxaa loo daaweeyaa si kala kaan ah daawooyin kuwa waxa weeye kaaridaadhi barinayaan marka wadnaha xoogii qaraaci iyo badnaa baa ka yaraanaya kuwana waxay ka hortagayaan hormoonkii ama deecaankii oo maaragtay wadnaha garaaciisa barin lahaa laakiin tan horta ugu muhiimsan daawo iyo waxaas intaana gaarin waxa weeye ari maxaa qabsan kartaa kiliga sidee ari xanuunkan horta ilaahay naga ilaaliye sidee iskaga ilaalin kartaa dhakhtarku wuxuu kuga caawin karaa daawo iyo talo laakiin ariga kiliga waxaa muhiim ah haddaa balwad leedahay si sigaarka hadda ka hadlayna inaa iska daysid haddaa awoodi weysid taasna iska yaree embeys haddii kalena haddaa hilib baran leedahay hilibka iska rid cunto xumada iska daa saliidda baran iyo cusbada baran iyo waxa kolestaroolka baran ku jira dufanka baran xataa hilibka baran ma wanaagsan iska yareena weeye sokorta baran hadda macaan sokor baran hadda isticmaashay macaan baa kugu dhacaya macaankiina dhiikarka wuu ku xiran yahay waa laba cudur oo xun iyo cuntada maaragtay cunto wanaagsan cunno iyo maaragtay inta dhaqaaqano jirka ka dhaqaajino xataa waxa wanaagsan dadka maaragtay reeraha markay qarayaan aka waxaan ugu soo koriyay fadhiiso cuntaake ma wanaagsana taas dadka waxa weeye cunto marka cuntil bax isa soo lugaya gebigiina israac oo soo lugaya saacad caado inta ka digano maaragtay inta jirka isdhaqaajino iyo xataa siiba dumarka hadday ka xisoonayaan gymka intay aaraan gurigiina gym ah guriga dhexdiisa gymku wax samee xoogaa saacad ama nus saac wiigii 3 jeer waa muhiim maaragtay jirka inta ku laaro oo dirir ka yimaado markaas waa intaas waxaa idin sheegay